Three, two, one. 15 saacadood ayay ilmahan yaryarka ah ee 5 jirka ah iyo midka hadda dhashay ee mujuqa ah qabriga 15 saacadood ee hooyadood kula jireen 15 saacadood ayaa ee hooyadood kula jireen subxaanallah mana aysan dhiman bal qisadan aan wada dhageysano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني شروة كجاري إن قصيدة سوقيو محيال ودالنا قف قدو شقينا إنه حواي وداليه مركب ودالنا يوتيوب كن وشقة كله مركب لا شقة أسكو هاي ما شاء الله يصلح قصيدة عنه حيتهاي وحواي وقبل يويل سلاشين هو يزود الله بزود بلادلين markay weynaadeen ee baaliq noqdeen yani ay qaan gaareen hooyadood aabahood Allah yarxamo raxmiyo way dhinteen markay dhinteen labadii waalid labadooda isku soo hiray labadooda ehelba waxay ahayd dad qaan gaar ah dadku waxbarashadooda iska wata waxbarashadooda dhameysteen shaqooyinkooda iska aadeen qof walbana ee wiilkana gabadhu jeclaaday guursaday gabadhana wiil is jeclaadeen wiilkeedu jeclaadeen is guursadeen alxamdulillah ilaaha loo kala nimceeyay oo laba meel ay kala aadeen laba reer kala yeesheen reerahoodii iska wada galeen marka mushaakilka yaalo waxay tahay gabadha waa gabar aad u naxariis badan jecel walaalkeed laakiin wiilka asaga bardo ma nacba walaashiis laakiin gabadha uu guursaday wiilka walaalkeed ah ma arki karto dumaashadeed ma arki karto yani ma arki in keeda waba dhibeeba inay aragto xataa iska dhaaf hadalkeeda marka waxay isku dayday inay kala goyso gabadhan iyo walaalkeed wayna kala goysay kadib reerka iyagoo isla hadlaynay juuq isku dheheenin gabadhan ilaah u nimceeyay ninkeeda nin shaqo fiican haysta yahay alxamdulillah oo reerkooda wada degan yihiin ayaa iyadoo uur leh waxaa loo soo sheegay gabadhan walaasha ah ninkeedii inuu maxay ahayd tolo shil ku dhintay الله يرحم راحمين يعني مشكلة دي مرقتي يا مرق أقدر صنت أول بيزا والدة عن إهاد هذا النينكي نواك دنتي ولا الكادنة ما وضح اللامبو بس سيسيدة هذه كل قد قرقي سيقد جنيدو الحمد لله شكر رب العالمين إيش كجوكتيو نين كان ماشو كشقينا أي العقل وقري ما دام قبل أن حاملتها هاي رير كان نكتجي سيدي جورنا وجوكتو ويرو الماء sidii maxay ahayd tolo alxamdulillah mashi xaal ahaa adduunkeeda ku raacanaysay maalmaha ka mid ah ayaa fool qabatay markay fool qabatay ciday wacata male marka oo qasbanta marka walaalkeed inay wacto raasato walaalkeeda wacatay waxay tiri walaalkeeyo fool ay hayso waa dhal rabaa kaaliga soo gaar walaalkoo soo kacay markuu soo baanaagtiisa waxay tiri ma aadi kartid wuxuu yiri walaashay wuxuu dhahay waqtiga ii baahneed waa qof foolanayso adiga bo hadaan maanta adoo foolanayo walaalka aad u aan lahayd anta kula joogi lahayd barto ku imaanay laagti soo tagi lahayd ma aha waa qasbane oo soo baxay oo soo wada walaashiis isbitaalku geeyay gabadhii yareedna oo soo waday iyadoo u keenay ayadoo diidan rabin oo u keenay wuxuu yiri hay gabadhan ka dhalayso gabadhan markii gudaha la geliyay waxa la yiri waa qalin amaliye gabadhii markii gudaha la geliyay ee qalinka ku maqneed ee muddo ku maqneed oo banaanka iska fadhiyay ayaa mar dambe loo soo baxshay waxaa loo keenay cunug yar oo wiil ah oo dhashay walaasha cunugay dhashay waa kana walaashay ina ogaadaan caafimaadkeed walaasha waxaa dhidi way umul raacatay Allah yarxam raaximiin way dhimatay subhanallah murugtu darsan waa wuxuu ka fikiray walaalkii ilmahan intee geeni hooyadooda dhimatay aabahoodna waa dhintay tagiya soo waday cunug yaray soo qaaday gurigu keenay xaaskiisu keento kala ogeena xaaskii markay aragtay waxay tiri yaa ana yaa awlaadan mas aniga mas ilmahan labadood midna joogay guriga mas iika ku yara mas anaa ku yara wuxuu yiri walaashay hadday dhimatay bal inta laga soo duway ii kaadi
hayay tiri isla markii waa lasoo duugay markii lasoo duugay lasoo aasay uu usoo noqday guriga yimid nase isdhahay tira cambaro ilmahan waxay tiri mase aniga iga dhaqaaji meeshaa tigay jidka ku tuur mukulaalaha sii eeyaa sii maxaa dhihi jiray maxaa lahaa meeshii oo ilmaha yatiinta la geenay xerada agoonta gey adiga sidii rabtid yaa lay tiri bas iga dhaqaaji wajigood haddaa diidin anaa guriga kaaga tagaa xooshii labadaa cunug reerkaaga intuu dudumi lahaa yaa ereer la-aan kugu dhici lahayd dhaqaaji u siri oo soo wada labadii cunug ha soo wada intuu geynaa soo u wareejinay ula wareegay u fikirooya ula wareegay oo mar dambe waxay kusoo dhacday meel aa geynaysa male haddaa geysid xerada yatiinka maanta dhan kusoo wacayaan ilaa adaa keenay jidkan dadkan kuu jeedaan ma dhigi kartid maxaan sameeyaa wuu fikiray dukaanoo galay wuxuu usoo gadgaday raashin ee cunugta gabadhaan 5 jirka ay cuni karto oo usoo gadgadiyey bacoo ugu soo shubay cunugii yaraayo soo qaadiyo mujuq ahaa hadda la dhalay maanta la koow tahay miskiinka adduunka oo soo qaadiy qabriga hooyadood albaabo leh qabriga hooyadood intuu furay oo fufriisi ilmihi oo wuxuu yiri abtiyo cuntadan sii cun abti intee noogu tagay tiri waa in soo noqonahay cuntadan sii cun inta sii joog waa idii imaana abti meeshan mugdi waa ka cabsana dib ma loo hooyo waa idii imaana albaabkii ku xiray waa ka tagay subhanallah waa ka dhaqaaji haka tagay yaa dib dambe oo ma soo noqon maxaa jirta marka qabrida qof waardiyeya jirto oo wareego maqrib waaye qofkaana yimid waa waardiye usir wuxuu maqlay cunug mujuq oo wagaga meel ku oynayo kasoo waa naxi xusri qabriga dhaxdiis maaba ilmo kasoo dhex oynayo ha adduunyaa timid ordo isku soo taabtay isagoo yaaban yaa markuu yimaado ilmihii qorraacdooda maqlaay oo wuxuu sameey lahayn 15 maalmood ay ku soo wareegtay maalintii 16 maalin ahayd yaa 15 maalin ku xiran 15 maalmood maanta 15 maalmood soo wareegtay maanta 16 maalmood ah asagoo baar fadhiyo wuxuu yiri nin saaxiibkiisa fadhiyo wuxuu ku sheegaa war qabridaas wardiyo oo wuxuu yiri ilmo yar ka dhaxweynaa qabrigo yiri ilmo yar ka dhaxweynaa ma ba aamusayo cunug inta ku cabsado yiri ani waa in iska dhaaf waqti qabridan wardiyo iska dhaaf shaqadan iga dhaaf ina iraada ahays soo baxo yiri tus warniyo ma yaa nasu sii roo arkayna soo raacin labadooda qabriga yimid albaabka la furay markii la furay subhanallah labadii cunug waa sidoodii waa nooli cunug dhinta ma jirto labadii cunug oo ka soo bixiyay wiilka la socdo wuxuu yiri yaa idin keen abti meeshan abtigay ana keenay tiri gabadha hadli kartaa waa 5 jir abtigay ani keen wani soo noqona uu yiri markuu waaga bari ani soo noqona wili waaga ma bari miya soo bixiyay abtigaa soo idin keen abtiyaa noo keenay raashin oo noo soo qaaday bac ku soo shubay si cunuu yiri laakiin oo yiri markuu naga tago dhahay habeenkaas dhan ooynay cunugii hooyadeey soo fadhiisatay subhanallah waa hooyada dhimatay hooyadeey soo fadhiisatay cunugii yaraay naasay siisay way ku noqotay jiifkeeda aniga raashinku way iga dhamaatay waxa ii yimid nin dhar cad wato ninka dharka cad wata raashin ii keenay waa cunay anigana saasan ku joogin abtiyaan sugunaado ya abtiyaan suguna ilmi way wadeen meesha booliiska geeyeen arinta dhacday loogu soo bilaabay ilaa dhamaad booliisku oo dhageysay qabriga la soo fiiri qofka la dhashay la ogyahay ileen asiga la raadi abtigi waa la soo qabtay xiriga tahay labadii cunug waxaa la geeyay xerada agoonta ma markada xerada agoonta geeyo bal xaqoo qabriga ugu wadaa wala saasayna ma jiraan wala adduunku waxaan jira ma jirto xool baa jira oo ida abaadeen dhinteen wax kale oo nool ma jirto ilaahay joog Allah kariim ya Allah hooyo wallahi cayaar ma xanuun hooyo xanuun wallahi hooyo la'aanteeda abaar waay qasadeen maanta intaas ku eg tahay insha Allah mid la mid ah waxaan idinkaga tagayaa caafimaad cimri dheer cibaado suuban bash barwaaqo waxaan idinka baryayaa inaad share tiraadeen like tiraadeen subscribe tiraadeen insha Allah qasan nagmada insha Allah soo imaan doonaa
anagoo caafimaad qabin idinkoo caafimaad qabtiin kheyr badanaa idin dhaafay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.